بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa dhul iib ah ee ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah dhul bannaan oo ah hal boos waxaan guda gelayaa xogta dhulkan oo dhammaystiran ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo dhulkan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho waxa uga sii yaalaa deegaanka Gubadley oo ka mid ah saddexda deegaan ee hoos yimaada gobolka Banaadir. Gubadley waxay diris la tahay degmooyinka Kaaraan iyo Hilwaa. waa xaafad soo kobceysa oo horumar badan sameyneysa. sidoo kale Gubadley waxay leedahay xeeb aad u qurux badan. waa degmo ama deegaan saaran xeebta dhanka waqooyi bari ee magaalada Muqdisho. haddii aan ka hadlo booskan iibka ah Gubadley meesha ugu sii yaallo, Gubadley wuxuu ugu sii yaalaa agaarka xarunta degmada loo qorsheeyay insha Allah oo xarunta maamulka ah. Gubadley waxaa la rajeynayaa mustaqbalka dhow inay noqoto degmo buuxda. xilligan la joogo waxay leedahay dhammaan adeegyadii degmo ee loo baahnaa. walaalayaal ina xaafadda uu ku yaalla afaanteen ayaa rajeynayaa. dhanka baddana waa kaasaa badda aad ayuu ugu dhow yahay. qiyaastii dhulkan badda waxaa u jiraa wax kiiloomitir ka yar dhowr boqol oo mitir. halkaasaa badda waa idiin muuqataa. xeebtaas quruxda badan ayuu leeyahay. waa dhul maasha Allah meel istiraatiiji ah ku yaalla. xaafad haddana deegaan ah. agaarkiisa oo dhan waxaa waaye waa la degan yahay. waa boos haddii aad doonto aad hadda inta dhisato aada horay ka degi kartid. gadaashaada dhan waa ujeedaa guryaha ku yaalla kasoo horjeedkaaga. dhinacan kale waa ujeedaa wadada jidkan ayuu leeyahay labada dhinac siday u dhisan tahay. soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysta. haddii aan ka hadlo cabirka oo dhulkaani ku fadhiyo walaalayaal, cabirka dhulkaani ku fadhiyo waa 20 lagu dhufto 15 ama finti barkuundishe dadka qaarkood siday u yaqaanaan. wejiga hore waxa uu ka noqonayaa 15 mitir. dhirirkana booskan waxa uu noqonayaa 20 mitir. runtii waa cabir aad iyo aad u fiican. waa dhul aad ka dhigi kartaa haddii aad doonto laba qeyb oo laba nus oo kale aad u kala goyn kartid. haddii aad isku dhisidna waa boos weyn oo intaasoo qol kuu qaadaya. hal guri haddii laga dhiso wuxuu noqonayaa guri waasac ah, qolal badan leh, barxad leh. marka xagga cabirka waxaa waaye cabirada ugu fiican 20 lagu dhufto 15. haddii aan ka hadlo walaalayaal booskani jidadkiisa waa boos hal jidla ah. waxaa hormarta hal wado, saddexda dhinac oo kalena waxaa ka xiga guryo dad. wadada waxay ka martaa dhanka galbeed. sidaas awgeed boosku wuxuu noqonayaa boos galbeed ujeed ah. wadada hormartana waa wado weyn sida hadda ujeedaan. wadadan waasac ah ayaa hormarta oo jayga ah. wado hagaagsan si fiican u dhisan. walaalayaal soo dhawaada ka faa'iideysta. haddii aan ka hadlo xagga dukumentiga, dhulkan dukumentigiisa waa uu saxan yahay. waa dukumenti nadiif ah. nootaya alla midaa jeceshahay aad kala wareegi kartid. xagga dukumentiga wax walwal ah ma laha. walaalayaal haddii aan ugu dambeyn
aan ka hadlo qiimaha lagu rabo booskan iibka ah, waxaa lagu rabaa walaalayaal booskani 8,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhammaad ah macal dalaal iyo heshiis. wixii macquul ah waa laga faragelinayaa. shirkadda Dallas Real Estate waxay u taagan tahay inay macaamiisha ay qanciso dhulla haddii uu yahay qofka iyo haddii uu qofka gadanayo uu yahayba. waxaan nahay qoortii labada garab u dhaxaysay, marka wixii macquul ah in laga dhimo ayaa ku dadaalaynaa. lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriir. booska ujeedaa inuu qiimaha aan sheegna u qalmo, waxaa yeele boos jid fiican leh, deegaan leh, meel taag ah ku yaallo, badda iyo meelaha kalena sida ugu sarreyso ujeedaa. meeshaan haddana xeebta ku dhow, hawadeeda aad ayay u fiican tahay. gurigii laga dhisa waxaa waaye guri oo leer iyo qabow looga dhargaya ayuu noqonayaa insha allahu tacaala. marka faa'iideysta walaalayaal, qiimaha waa macquul, 8,000 oo doolarka Mareykanka ah keliya. haddii aan ka hadlo sidoo kale waxyaabaha uu dhulkani ka anfici karo walaalayaal, waxa uu booskan idinka anfici karaa kow deegaan ahaan, maxaa yeele waa meel deegaan ku fiican, hawo macaan leh, dhul cusub ah, adeegyada bulshada u baahan tahay oo dhan aad ka helaysid. haddii aad suuqii cuntadii tahay, caafimaadkii, waxbarashadii, adeegyada bulshada oo dhan waa u dhammaystiran yihiin. BL ayay leedahay. marka soo dhowaada. dhanka deegaanka waa dhulka ugu fiican ee la dego, dhul hawo macaan leh. waxaa kale oo dhulkani ka anfici karaa ama uu ku fiican yahay, waa dhul maalgashi ah oo mustaqbalka dhow la rajeynayo inay lacag badan ay ku kororto. waxaa dhulkan hadda waa raqiis, lacag aada u jaban ayaa la gadoyaa. haddii wadooyin laamiye ah loo dhiso, maamulka la aqoonsado, degmo rasmi ee noqoto, waa meelaha ugu badan ee magaalada ay kusoo fidi doonto. dhul xeeb ah, hawo macaan leh, marka maalgashi ahaan aad ayuu ugu fiican yahay dhulkaani oo mustaqbalka dhow ee lacagta ay kororto ayaa la rajeynayaa. sidoo kale xitaa keli waa keli kartaa haddaad guri qurux badan ka dhisatid, fillo ama bacweyne qurux badan, isagana kile uu kugu galayaa. soo dhowaada walaalayaal, ka faa'iideysta. haddaan mar kale si kooban idinkugu soo celiyo, dhulkan iibka wuxuu ku yaalaa Gubadley. waa hal boos, waa hal jidle. cabirka booska waa 20 ama 50 barkuudisha sida u taqaano. dukumentigiisa waa uu saxan yahay. qiimaha lagu rabo waa 8,000 doolarka Mareykanka ah. waa hal jidle galbeed ujeed ah. soo dhowaada walaalayaal, shirkadda Dallas waxay diyaar u tahay inay idin soo tusido. haddii aad ku qanacdaan qiimaha laga heshiiyey nootahay alle mid aad jeceshiin ee idinkaga wareejiso. soo dhowaada. ugu dambeyn, waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate. waxaa si xushmad leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambareelkan aad furataan, idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha aan mustaqbalka soo gelino. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.